waxaan rabaa inaan maanta idinla wadaago qiso aad muhiim u ah. Waa qiso aan aaminsanahay inay habboon tahay in qof kasta maqlo. Intuusa dhiman ayuu aabbe wiilkiisa ku yidhi, waatan saacad uu awowga ay siiyey. Waxay ku dhowdahay 200 oo sano ka hor intaanan ku siinin. Aad dukaanka dahabka ee magaalada u sheeg inaan rabo inaan iibiyo oo fiiri inta ay kuu soo bandhigaan. Wiilkii wuxuu aaday dukaankii dahabka, wuxuuna ku soo laabtay aabbihiis. Wuxuu yidhi, waxay ii soo bandhigeen $100 maxaa yeelay waa da. Aabbihii ayaa ku yidhi, isku day xafiiska daymaysiga. Wiilkii wuxuu aaday xafiiskii daymaha, wuxuu ku soo laabtay aabbihii. Wuxuu yidhi, wuxuu xafiiskii daymaha soo bandhigay $20 keliya maxaa yeelay waxay leedahay xoqxoq. Aabbihii ayaa wiilkii ka codsaday inuu aado matxafka oo uu soo tuso saacadda. Wiilkii ayaa si aamusnaan ah su'aal uga keenay xukunkii aabbihii. Wuxuu aaday matxafka isaga oo fulinaya amradii ugu dambeeyey aabbihii. Markuu soo noqday wuxuu yidhi, kormeerihii ayaa ku yaboohay $375,000 gabalkan aadka u dhifka ah si loogu daro qadiimigooda qiimaha badan. Aabbihii ayaa ku jawaabay, waxaan rabay inaan ku caddeeyo meesha munaasabka ah inay kugu qiimaynayso waddada saxda ah. Weligaa ha sii joogin uusan qofna arag qiimahaaga ama aadan dareemaynin in lagugu qadarinayo. Haddii aadan aqoon qiimahaaga, waxaad had iyo jeer degaysaa wax aad uga yar intaad u qalanto. Dadka aan garanaynin qiimahooda waxay aqbalaan wax ka yar intay u qalmaan cilaaqaadkooda ama saaxiibtinimadooda. Markuu arrinku la xiriiro xirfadooda ama shaqada, way og yihiin inay mudan yihiin wax ka badan, laakiin waxay aqbalaan xadidaadda qeexitaanka qof kale qiimahooda. Dadka badankood waxay u oggolaadaan qof walba inuu saamayn ku yeesho aragtida ay ka qabaan naftooda, laakiin dadka jecel noloshooda waxay diidaan inay aqbalaan fikradaha dadka aragtida gaaban. Waxay diidaan in lagu rido sanduuq. Ha u oggolaan in ay iyagu qiimo ku yeelaan. Adigu deji qiimahaaga. Ha u bixin qiimo dhimis dadka kale si aad ula jaanqaadi karto ama dadka dhexdooda lagaaga jeclaado. Haddii aad leedahay qof noloshaada ka mid ah oo isku dayaya inuu yareeyo awoodahaaga si kastaba ha noqotee, waxaa la gaadhay wakhtigii aad dadkaasi ka dhaqaajin lahayd. Adduunkan keliya waa inaad kasbataa ixtiraamka hal qof, qofkaasna waa adiga.